salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamayaa daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan. halkani waa Elias Online. barnaamijkeena caabo qodobka aynu kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 30 sano ah dhaqaale ka heshay shidaalka iyo kheyraadka kale ee ku jira dalka Soomaaliya. waa 25ka bisha 10aad 2019 goor sheegtada geeska Afrikana waxa ay tilmaamaysaa 9:12 daqiiqo. barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Geele. aynu ku bilowno barnaamijka. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sanadihii dambe ku howlaneed sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka dalka oo dhawaan la filayo in la soo bandhigo xajmiga uu la eg yahay qaybihii sahanka lagu sameeyay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xusulduub ugu jirta sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka uu Ilaahay ku manaystay dalkayna hooyo. kadib dadaalo badan oo ay madaxda wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya ka sameeyeen dib u soo celintii xiriirkii shirkadaha ku leh xirmooyin shidaal iyo kuwa kale oo maalgashi cusub ka samaysta Soomaaliya ayaa waxaa lagu guuleystay in lagu qanciyo shirkadahaasi lagu leeyahay ijaarka xirmooyinkii ay haystaan. sidaasi waxaa BBC-da u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal. wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya ayaa mar uu u warmayay BBC-da ayaa sheegay in la gaaray xilligii Soomaaliya ay soo saaran lahayd kheyraadkii iyo sahankii la sameeyay sanadihii ugu dambeeyay bloogyada suuragal noqon kara ee uu ku jiro shidaalka. Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ka badan 30 bilyan oo fuusto oo shidaal ah in uu ku jiro xeebaha Soomaaliya. waxa uu intaa raaciyay in heshiis ku saabsan bixinta ijaarka xirmooyinka shidaal oo ay galeen wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo shirkadda Shell Exxon Mobil. shirkadda lagu magacaabo waa Shell Exxon Mobil bishii June ee sanadkan. shirkadahaasna ay dowladda federaalka u shubeen lacag dhan 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka. waxaad nagala socotaan Elias Online. sidoo kale waxa uu wasiir ku-xigeenka sheegay in lacagtaasi ay tahay qaybtii ugu horeysay ee ah ijaarkii shirkadahaasi lagu lahaa 30kii sano ee la soo dhaafay, maadaama shirkadahaasi ay horay heshiis ula galeen dowladdii ugu dambeysay ee Soomaaliya gacaankii wixii ka dambeeyay iyo xukuumadihii ku meel gaarka ahaa ee uu soo maray dalka Soomaaliya. guud ahaan marka la isku daro ayaa waxa ay noqonaysaa muddo dhan 30 sano ijaarkii lagu lahaa oo ay hadeertaan dowladda federaalka Soomaaliya u soo shubeen lacag gaaraysa 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka. waxaa sidoo kale wasiir ku-xigeenku sheegay in lacagtaasi ay tahay qaybtii ugu horeysay ee ijaarka ahaa. wasiir ku-xigeenku ayaa sidoo kale ka hadlay
qaabka lacagahaasi ay u qaybsan doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada maadaama ay horey ugu heshiiyeen qaybsiga kheyraadka dalka ee heshiiskii ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka koonfur galbeed. maamulka lacagtan ayaa ku saleysnaan doonta heshiiskii ka dhacay magaalada baydhabo sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya. heshiiskan ayaa sidoo kaleeto ku saleysnaan doona heshiiskii ka dhacay magaalada baydhabo sanadkan aynu ku jirno sida uu sheegay wasiirku oo ahaa xirfadiisa uu ahaa ku saleysnaan doonta heshiiskii kheyraad wadaaga ee ay kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayuu shaaciyey wasiir ku-xigeenku batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya Mr. Hilaal. bil ka hor ayay ahayd markii shir lagu lafa gurayay sida looga faa'iideysanayo kheyraadka shidaalka ee uu leeyahay dalka Soomaaliya oo ay soo abaabushay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia. shirka waxaa ka soo qayb galay dhammaan maamul goboleedyada iyo khubaro dhanka shidaalka ah oo ka socday dalka Norway waxaana diiradda lagu saarayay diyaar garowga soo saarista kheyraadka Soomaaliya gaar ahaan shidaalka. maxamuud cabdiqaadir ayaa sidoo kale sheegay in laga gaashaamanayo in marka shidaalka la soo saaro uusan khatar ugu noqon dadka iyo bey-aduba. bishii Febraayo ayaa magaalada London waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay arrimaha shidaalka Soomaaliya kaas oo uu ka qayb galay wasiirka macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya. balse qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalka Soomaaliya ee haddeertan jirta ayaa waxa ay shirkaasi London ku tilmaameen mid lagu xaraashayay kheyraadka Soomaaliya. siyaasiyiintan ayaa lagu tuhmayaa in ay dabada ka riixayso dowladda Kenya oo gelisay amba u xunsul duubaysa in ay badda Soomaaliya waliba qaybaha ugu muhiimsan ee shidaalka lagu sheegay in ay ayadu gacanta ku dhigto mar walbana ay dowladda Kenya ku candooto in wada hadal lagu dhameeyo kiiska maanta yaala maxkamadda cadaaladda Hague ee fadhigeedu yahay dalkaasi Holland. dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa beenisay warkaasi waxa ayna sheegtay in shirka London uu ahaa mid lagu soo bandhigayay macluumaadka shidaal sahmin ee Soomaaliya laga sameeyay sanadihii ugu dambeeyay. shidaalka oo la og yahay in qiimo sare uu ka joogo suuqyada caalamka dalal badan ay dhaqaale ahaan ay ku hormareen ayaa waxaa sidoo kale la ogsoon yahay in uu yahay colaad iyo dhibaato hor leh u horseeday dalal ay ka mid yihiin labada Suudaan, Nigeria iyo Iraq oo tusaale loo soo qaato dalalka ay dhibaatada ugu badan ka soo gaartay dhibaatooyinka laga dhaxlo kheyraadka dabiiciga ah ee aan si wanaagsan loo qaybsanin. dadka qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in aan la gaarin in shidaal laga soo saaro Soomaaliya maadaama dastuurka Soomaaliya uu yahay mid qabyo qoraal ah oo ku meel gaar ah aynan bari ummadda Soomaaliyeed ku heshiin karin. Soomaaliya ayaa burburka kadib waxaa ummadda Soomaaliyeed bulshada qaybaheeda kala duwan uu soo dhexmaray dagaal ku saleysan qaab qabaa'ili ah laakiin dowladda Soomaaliya ayaa arintaasi ayadoo ugu gogol leh in la soo saaro shidaalka Soomaaliya ay sheegtay in la gaaray xilligii ay ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysan lahaayeen kheyraadka Ilaahay dalkooda ku maneystay. sidoo kale siyaasiyiinta qaar ayaa waxa ay qabaan in haddii aanan xilligan looga faa'iideyn shidaalka iyo kheyraadka dalka Soomaaliya uu leeyahay aanan jirin goor iyo xilli dambe ummadda Soomaaliyeed ay kaga faa'iideystaan.
halka ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii ku saabsanaa shidaal saxminta iyo dowladda Soomaaliya oo lacagtii ugu horeysay soo gaartay muddo shirkadihii xirmooyinka shidaal ee ay ayagu hore u bartilmaameedsadeen oo 30 sano la soo dhaafay ayagu u xirnaa in ay bixiyaan ijaarka lacagtaas tirada lagu qaas 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka. barnaamijku waxaa idin la socodsiinay anigoo ah Geele, waxaad kala socoteen Ilaas Online tan iyo ismaqal dambe oo xiis leh. waxaan idin kaga tagay sida iyo amaan Allah.